دنتنا ما كافسه على نكيدي لا يوم نداء ونداء نجاحشو kulankani oo ahaa sida haweenka Soomaaliyeed ay u qayb qaadan karaan nabadda iyo xalinta khilaafaadka iyo sidoo kale doorka haweenka ay ku leeyihiin siyaasadda Soomaaliya iyo tan dowlad goboleedka Jubbaland ayaa hay'adda SWSO oo kaashanaysa hay'adda LBI waxay u qabatay ururada haweenka degmooyinka Doolow balad xawo luuq iyo ururka dhalinyarada degmada Doolow Soomaaliya waxaana dhanka kale kulanka ka soo qayb galay maamulka degmada Doolow ugu horreyn waxaa kulanka daahfuray gudoomiye ku-xigeenka degmada Doolow Soomaaliya Aadan Barra Cali SWSO labadaba waa salaamiya sababtay tahay waxaan aad iyo aad u jeclahay mar kasta oo Doolow maadin la kulmaan waxaan jeclahay waxaa kaloo jeclahay saaco kala hagta dalad ma jiri jirin reer Doolow iyo reer Balaxaw iyo reer Luuq haweenku isku imaan jirin ayooda kama tashan jirin siyaasad kama qayb qaadan jirin inta badan waxaa kan ugu mahad celinayaa saddex degmo si ay isugu xigeen oo halka dalad u sameysteen gudoomiyaha dalada daawa maamo Xaawo Cabdiraxmaan Cabdi ahna gudoomiyaha ururka haweenka degmada Doolow Soomaaliya Xareed Xasan Yaro gudoomiyaha haweenka degmada Luuq isla markaana ah gudoomiye ku-xigeenka dalada daawa iyo Canab Cabdu Cabdullaahi oo ah gudoomiyaha haweenka degmadaasi balad xaabo xogayna ka ah dalada ayaa ka sheekeeyay waxyaabihii u qabsoomay waxayna u mahad celiyeen hay'adda SWSO waxayna baaq u direen dhammaan musharaxiinta dowlad goboleedka Jubbaland gaar ahaan musharaxiinta madaxweyne inay ka fogaadaan wax walba oo bulshada reer Jubbaland khilaafaad isku dhac u horseedi karo doorashadan ay u dhacdo si xor iyo xalaal ah markaan ku hormaro doorka ay haweenku ku leeyihiin qaybta siyaasadda doorka ay ku leeyihiin waa door weyn waa haddii nala siinhayo laakiin waxaan qabnaa riixid badan iyo suxulayn badan oo mas'uuliyiinta Jubbaland ka codsanayna oo musharaxiinta cusub oo Jubbaland oo socota ka codsanayna oo odayaal dhaqameedyada Jubbaland ka codsanayna oo aan ka codsanayna dhalinyarada aayaha aan ku tashanayno oo tirada iyo tayada leh oo Jubbaland aan ka codsanayna ugaasyada aan ka codsanayna in ayna ka dhicin doorashada dhibaato si cadaalad ah oo xaq ah oo xalaal ah in ay ku soo gabagabowdo doorashada Jubbaland waxaan rabnaa doorashada Jubbaland inay u dhacdo si nabada waafaqsan shariicada islaamka xor iyo xalaal ah inay ku dhacdaan rabnaa war xilka ninku waxaan leeyahay xilka ninku Ilaahay u qoraa qaadanay xilka ninku Ilaahay u qoraa qaadanay war nin kasta oo xilkaas heli doono meel baad maanta Ilaahay ugu qoran Ilaahay baa mahad leh waxaan naga soo gabagaboobi rabo dagaalihii sokeeye ee aan ku soo gubanay oo dhibaatada nagu soo martay oo nagala baraarujiyay oo SWSO ay gacanta naga siisay sida aan naga soo kaban lahayn ku imaanaya si khilaaf la'aan ay jirto si buuq la'aan ay jirto dagaalka sokeeye oo 91 up to now ka soo kaban in dib loogu celiyo marabno ma qaadanin in dib loogu celiyo ma doonin in dib loogu celiyo haddaan soo kabanay qof intay wax dana nooma hayo qof oo jab wax dana nooma hayo in dadka dhibaateeyo ma aha doorashadu inay u dhacdo si xor iyo xalaal ah cidii musharax ah iyo cidii wax rabto si daaragta inay ku imaado in daaragta wax kama shaqeynayaan waxaan baaq u dareynaa musharaxiinta u socoto dowlad goboleedka Jubbaland rabto inay xil ka qabato nin kasta oo uu yahay inay ku soo dabalaan carada nabad adoonina qabiil lagu helo halka reebel baa degan hoodane sidee baan ku heli karnaa oo nabadu waa hoodane sidee baan ku hanan karnaa oo hororku waa cadowe sideen hoy ku oran karnaa oo hadafka gobolkeena sidee baan u horumarnaa